iyadoo jiraan dhibaatooyin kala duwan ee dhanka caafimaadka ee haysta qoysaska barakacayaasha ee ka cararay xaafadaha ay ka degnaayeen magaalada Beledweyne kuna sugan deegaanada Ceel Jaale iyo Janta Kundisho ayaa markii uu reesay daawo lacag la'aan iyo waliba baaris wax u soo biyay ardayda macallimiinta wax ka baratay jaamacadda Hiiraan University. ardayda ayaa la arkayay iyagoo dabiibaya dadka xanuunsan ee ku sugan deegaanadaasi iyagoona sheegay in ay wadi doonaan gargaarka la garab taagan yihiin qoysaska barakacayaasha ee ku sugan deegaanada Ceel Jaale iyo Janta Kundisho. Ismaan Caato oo ah maamulaha jaamacadda Hiiraan University qaybteeda Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay wadi doonaan gargaarka loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in garab siiyaan walaalahooda dhibaataysan ee ka hayaamay xaafadaha magaalada Beledweyne. waxaa dhacay qax fara badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn u geystay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobolkan Hiiraan marka jaamacadda Hiiraan ayadoo ka jawaabayso wax dhibaatooyinka ka dhacaya magaalada Beledweyne waxa ay diyaarisay gurmad degdeg ah oo ay u qabanayso dadka barakacayaasha halkan dhooban dadkaasi waxay isugu jiraan waayeelo caruur iyo haween isugu jiraan marka sidaa daraadeed jaamacadda Hiiraan maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Hiiraan waxay iska kaashadeen in ay qarash isku soo jeebkooda ka soo bixiyaan oo ay dhahaan wax idinka darbaa jira waayo ayagan loo baraarujinayaa inay macnaha ay dadka walaalahooda wax taraan dadka kalena ay khudwa ugu noqdaan. waayahay marka maxaad kale oo aad dalban lahayd in arrinta la sii saaciidiyo maamulka waxaad ka dalbanayso cid kale oo gacan idinka siinaysa inaad howlahan aad dadka u sii wadaan wax gacan naga siinaya ma jiraan waa annaga isxilqaanay macallimiintii mas'uuliyiintii iyo ardadii waxaan u jeedinayaa dadka meel walba ay joogaan in dadka walaalahooda ah wax la taro annaga waxaan wadnaa waa caafimaad ma aan raashin iyo waxaas ma aan Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah gudoomiyaha ardayda jaamacadda Hiiraan University oo wareysi ka raasiyay TV-ga qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay wadi doonaan gargaarka la garab istaagin shacabka Soomaaliyeed loona baahan yahay in gacan ballaaran loo fidiyo qoysaskan dhibaataysan. ayaan ku gaarnay waana jaamacadda Hiiraan dhamaanteed maamulkii macallimiinta ardayda dhamaan ka wada qayb qaateen khaasatan kulliyadda caafimaadka ayaana dadkan wax u qabanayso wixii daran waxaan u qaadan doonaa isbitaalka Beledweyne wixii oo xanuunsan meeshan ku daaweyn doonaa daawada oo soo qaadnay bulshada joogteena ka soo ururinay dadka kale magaalada joogan waxaan u sheegaynaa in sidoo kale dhibaatooyinkii kala duwanaa ay soo mareen qoysaska barakacayaasha ayaa daawooyinka la gaarsiiyay xilligan waxay yihiin kuwo aan ku filin nafsadooda waxayna u baahan yihiin in qoysaska la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo isugu jira daawooyin raashin si ay ugu samad baxaan dhibaatooyin kala duwan ay kaga careen magaalada Beledweyne. Cabdishakuur Ismaan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliya, Beledweyne.